maanta meeshan la isugu yimaado heerkan ay xaajadu ay soo gaartana waxa waaye gubtayna oo gogosha fidisa ciddii qaadatay go'aanka ah inay nabadgelyo cid ay u daran tahay ayna jirin soo gudbisay go'aan midaysan u soo gudbisay beelaha kale ee halkan taagan oo walaalahay hore inay nabadgelyo qaateen aad iyo aad aan ugu mahad celihaynaa anigu hadda ma ahan inaan warka qaato waayo warka waxaan u soo gudbihaynaa gobta gogosha fidisay waxayna ku soo dhaweey doontaa walaalahayna heer agoon yar si ay iyaguna kalimaadkii halkan ka dhacay mid lamid ay u yiraahiin balse waxaa la yiri hoggaanka ratiga iyo ninka wada hoggaanka u dhaxeeyay gobta arintan guddoonkeerana lahayd gogosheerana lahayd anukuna hadanaha odayaasha beesha harti abgaal ku metelayo guddiga aad iyo aad waxaan u soo dhaweeynaa go'aanka aadka u quruxda badan leh oo halkan ka yeeray oo nabadgelyada ku qaadatay beesha Cabdalla Caruune sidaas darteed marka waxaan rabaa inuu uga gudbiyo warka oo u gudbiyo Maxamed Cadow oo ah yaraanka harti walaalaha ayaa hoo dirirayaan u nimaday dadku reer imaan ilaahay ma hadda iska leh laakiin waxa lagu mahadiyaa ilaahay amuurtiis iyo reer imaan marka diig joojina loo yimiday maalin khamiisa ilaa iyo berigo oo jimca khamiis ka sheey ilahaas walaalaha ayaa oo diig kala daadiyay dartooda u nimaday ilaahay mahadiis ilaahay baan ku mahadiyeynaa reer imaanaan ku mahadiyeynaa gobolka ku mahadiyeynaa ilaahiisa walaalihi waa heshiiyeen walaalihi shacabkii ilaahay baa mahadaas iska leh ilaahay idmay anaguna waxaan u joognaa maanta inaan goobjooga ka naqano somalka iyo Soomaaliya lagu maaragtay waaqdaacahayo oo walaalahan ay u xaar tahay marka alxamdulillah intaas aan goobjoog ka nahay نبضان قادرنا سيدان انتان اللي قلي ام بس مدحدا هرتي ابقال ابا قبتا قلبت هورتاجر تاجر ورنا نقيد وحان قادرنا نبضان قادرنا حالي ساعدا حمن كدحا شغيه نبضاس إلى أصلاح أن وحي نبض الباب كيري هاي قلبت جوبنا وأنا التنمية شان تاج وحاسب يدينا عضو القمر كاتيا كان نغطو عبدالله عرون وحلال إيه وحي الشيء قال يكون فدوغي مريحيسي يبعوكيسي إيه عربتيسنا فرطو مصوى أغرستي تاريخ قلبت وحي تالا يغان عبدالله عرون النبضو قات وعونا كقاتي إلي مصلحة وجرتو واكا قاتي مركا كوبات ووضع أبقال واكا قاتي قبتا إيا قنتنا واكا قاتي بيلها ولاليه سو أبو يقابنا واكا قاتي انتا صورنا نبضو كقاتي وحي حولا oo amba hadda u xiran amba soo dabayaalna in dalka iyo dadka loogu duraato rabaa wixii intaas ka dambeeyana waxaan ahay beesha agoon yar wabarkeeri waxaa dhacday ceel muluk iyo ceel moor meel yara inta ka dhaxaysa qaraabo isla joogtay dagaashay oo ahayd Cabdalla Caruune iyo agoon yar beeray falahaayeen ku beeranay beera lagu dagaalay markii la dagaalay la kala tagay markii la kala tagaa nin daba kacay nin asoo galay waa la isugu yimiday
laga hadlay markii laga hadlay ee lagu kala tagay haddana ka bacdi laba nin oo kala dhimata haddana taas markay dhacdo waxaa soo baxay heer imaan waa dhex degeen afar maalmood waa soo baxnay maalintayna wacaan subaxdeeriba waa soo baxnay waa nimiday hawshiyaan gudagalnay waxaa yimid haddana odayaal kaloo hartay abgaala waxaa yimid haddana beesha cabdalla caroone odayaasheeri meeshiyaan isugu wada nimiday dhaqamaan gudagalnay waa laga wada hadlay waa la heshiiyey markii la heshiiyeyna waxaa lagu ballama shareecada islaamka in lagu dhaqa dadkaasaa lagu heshiiyey waxaa la yidhi cid waliba nafteeda u naxdo laga bilaabo saacaddaa ninkii nin kascad u dila in loo dilaayo ha ku tashado bannaanka baadiyaha inta jirta taleefanaa la heestay waa loo wada diray xamaraa loo diray degmada cadalaa loo diray degmada cadalana waa nala joogtay degmada jawharna waa nala joogtay oo maamuladuna waa nala joogin oo nagama dheerayn sidii lagu heshiiyey meel kasta waa loo diray waana naga go'aanoo wax dib looga naqaayo ma ahan oo shareecada islaamka ee ka naqasho ma laho ewelaan bahayada ku dhalan marka saasaa kuxukuntana kuna heshiinay saacaana waxaan bilaystay isku soo socotaa sumar iyo sumay wax la yidhaaho xeer noo ah sumarkiiyo sumaystay aan bilaystay haynaa haddana marka sidaasaanu ku ballanay meeshan ka dhacay dad walaalaahoo wada degan ayaan ku soo baxnay meeshan waxaana soo wacay ayaana soo wacay arimanana soo wacay waa ugu nimiday meeshan geedaha hoostoora waxaan joognaa muddo oo 8 maalmood ayaan joognaa iyo 8 habeen dadkaasa nabadayhayni ilaahay mahadiis xilliga uu soo bilowday dagaalkan iyo cidda si gaar ah idinkaga qayb qaadatay xilligiisu uu soo bilowday anugu xamaraan jirnay dagaalkaasaa dhacayaan la dilaa la yiri saas dina la yiri meeshan waxaa timid goobtiyaa dhex degtay goobtii markay dhex degtay waana soo waceen sida ayadayna soo waceen sida ugu degdeg basiine badan u soo gaartaan yaa idin kala qayb qaatay marka dhexdhexaadintan aad ku jirtaan waxaa nagala qayb qaatay beesha rataabgaala ka qayb qaadatay oo dhammaan ah iyo heer imaan goobtii iyo odayaashayna xamarka yimid intaasaa uga qayb qaadanay saasaana ku dhammaynay hadda dadkii dagaalamay oo aad nabadeynta dhex dhigteen baaqa aad u dirayso muxuu yahay inay xabadda joojiyaan inaan dagaal hadda waa joojiyeen waa la heshiiyey inaan dib dambe loo naqan ciddii u naqatana iyada qoftii waxaan ku heshiinaba seera ninkii nin dilay in la dilo ayaa labadaas beelood ku heshiisay saacan waxay ka bilaabo maanta waxay ka bilaabaan saasaan ku heshiiyey ninkii nin dilay in la dilo dagaalamay oo wax ka dhex dhaceen bahweynta guud ahaan rataabgaal goobta anuguba aan ka mid ahay guud ahaan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qadarta ilaahay waa meesheera go-aankayga iyo taladayda iyo haddii ilaahay idmo haddii shaksiyadda midnimo ahayn anaan meeshaan iyaga uga lugno aan waqtigaan joogno maanta waa jimco maalintaan maalinteediyaan yaalidmaan gogol meeshaan dhignay gogosha ka hor safar kaaban oo 24 saac ku eg anoo cadala ku imid ay dhibaatada meeshaan ka dhacday
markay ka dhacdana akhyaartii deegaanka joogtaan noo war keentay waxaan na go'aansanay inaan ku soo baxno awalan waxaan imaanay tuuladaan meesha cabdilaahi waxaan weydiisanay inay xabadda joojiyaan oo ay waranka dhulka dhigaan oo u duceyno si sharuud la'aan nooga aqbalay waxaan ugu gudubnay beesha kale intaan cabdilaahi weydiisanay waxaan dhahnay wiilasha meesha ka baxsha xabadda hala joojiyo hala isu yimaado hala wada hadlo ayaguna sidaas si lamid ay nooga aqbalay waxaan go'aansanay markaan dib aan u fikirnay anagu waxaan ka soo jeednaa qoys boqortooy abkoowey imaan cumar allow naxariistay iyo aabbahay imaan maxamuud imaan allow naxariistay markay heshiisii tagaan beelaha abgaalis baa waxaa ka dhex dhacageeday waaba jireen waxay isugu yeeri jireen beelaha dagaalamay waxay isugu yeeri jireen kuwa kaloo la dhasho diris gooraa waxay u fidi jireen kugu nabadeen dariiqiyaan marnay geedahanaan waabnay waa isugu yeernay wixii xamar jiraan u yeernay wixii dirsaanka ahaan u yeernay dhammaantoodna waa naga aqbaleen ilaahay yaa ku mahadsan na waafajiyey dariiqadii haddii ilaahay ma dadkayna aan ku dhexgeli jirnay ku nabaday jirnay ayaguna naga aqbaleen waxaad maqlayseen gunaanadka beriga heshiiska meeshaan ka dhacay oo haddii ilaahay idma sumali sumayn lagu baraysay waayo oo haddii ilaahay idma shareecada islaamka ay ku heshiiyeen hadda kadib hadday wax dhacaan heerkii ficil sameey in lagu qaado ilaahay yaa markaati ka unukaa markaati ka aqbalaadda ayna aqbaleen inta aan qabanay haddii ilaahaynu annaga waxaa la yidhi gacantii ku geersumatay qofka u magaalada iidaa oo sheer qabsatay waxa annaga aan qabanay waajib muqaddisaa nagu dhig haddaad walaalkaa u timaad ilaahsaan maaha asaganu kaa aqbalo kii kalaad u yeertid asaganu kaa aqbalo inaad ilaahay u mahadayso ayagana xasuusa inaad ducid waajib hadal badan oo tiri maayo ilaahay subxaana qaadir ah mar walba u mahad celina waafajiyey wixii haddii ilaahay mudaabiyaalayn ay soo qaba jireen annaga heer maamadii la yidhaha adeerkay axmed waan cumara kana adeerkay maxamuud ismaaciil imaanaa jooga walaalkay maxamedaa jooga maxamuud axmed imaanaa jooga gobtiyaa dhammaa joogta culummadiyaa jooga intaasna waxay u soo istaageen dhibaatada beelaha ka dhacday aqbalaadda ay naga aqbaleen mar kale waa uga mahad haynaa xasuusaan u haynaa muhiimaddu waxay tahay heer imaam waxaa la yidhi laba shay ugu jecel yihiin waa duceeyaan oo haddii ilaahay idma heerkii war ka yeela iyo haddii gubna ku soora ay u jecel yihiin haddii la yidhaaho heer imaam ama asharaaf ama dadka diinka ku magacaabo dadkooda hadday dhacaan waxaa ku waajibaanay sidaan iyo si ka fiican iyo sidii ay wax ku xallin karaan anay sameeyaan haddii beelahaagu ay qulubka dhex dhacdo meelaad ku safarta ma leh meelaad ku noolaata ma leh meelay ayagu ku harsadaan ma leh meelay wax ku bartaan ma leh colaadu waxbay baabaysaa maan wax ma tarto mar kale iyo mar saddexaad an allah subxaana qaadir xasuusayna una mahad celiynaa beelihiin naga aqbalay go'aanka iyo gogashaan u dhignay heshiiskana isla qaata mahad celiynaa dadkii ka soo safray بسم الله الرحمن الرحيم توفيق إله ونوافجه بسم الله الرحمن الرحيم توفيق إله ونوافجه طلب ما سوء كانتي وارت الله كله إلهي إذن كيسا دادك ما شيء سوء سوء بريا وهذا مقع ترسلا ومقع يسوء إلهي حتى أبقال laba jinfo oo ka mid ah oo walaalo ah oo diris ah oo qaraabo ah oo ahla ayaa meeshaan ku dirirtay anaguna waa ku soo baxnay xoolaha waxaa la yidhi neef ayaa koorta loogu xiraa neefkaas waxaa loogu xiraa koorta in xooluhu raacana ogolaadana loogu xiraa koorta halkii qaldan soo weyso inay kii toosan u kaalmayso inay
saas ayay gobtu gob ku tahay saas awgeeraan ku nimid mahad allah naga siiyo qaraabana waa helnay iyo akhyaar iyo culamaa uddiin iyo dadka dhaqanka odayaalka dhaqankana waa helnay waxaa dhex maray dadkaas dhaqan waadix ah dhex maray ilaaha mahaddaas iskale anankuna waa u mahad celinay waana nala aad iyo aadaana wax naloo qabtay beelihii walaalahayna ahay ee dhiigga iska daadiyey waa isu keensnay sumal iyo sumayn ayay soo xirteen dadkan abgaal waaye abgaal caaqabadiisa waxaa u horeeya inuu sumal iyo sumayn isula yimaado gobtuna ay ka hadasho guntuna ay isugu timaado labada beeloodoo dirira maahayna dadka kaloo ahaalihuna ay yimaadaan muggaas ay uga mahad celiyaan raynta iyo gacna isqabsiga iyo walaalnimada iyo nabadda ay soo celsheen inay uga mahad celiyaan sidaas aan shirka ku bilownay waxaana waaye waa naloo kaga dambay doonaa